waxay maalintii saddexaad rabshado xoogan ay ka socdaan magaalada Goday ee caasimadda labaad ee dowladda deegaanka Soomaalida taasi oo u dhaxaysa dadka shacabka ah ee degan magaalada Goday iyo ciidamada militariga ee dhawaan bedelay ciidamadii New Police ee ka howlgali jiray gudaha magaalada Goday ee caasimadda labaad ee dowladda deegaanka Soomaalida waxaa dhinka kale taysa soo taraysa walaa xoogan iyo waliba iska horimaadyo u dhaxeeya ciidamada militariga ee lagu bedelay ciidamadii hore uga howlgali jiray gudaha dowladda deegaanka Soomaalida tan iyo isbedelkii ka dhacay gudaha dalka Itoobiya ee lagu bedelay ciidamadii New Police ee horay uga howlgali jiray gudaha dowladda deegaanka Soomaalida ciidamada militariga ee lagu bedelay ciidamadii New Police ayaa waxa ay geysteen tacadiyooyin aad u waaweyn kuwaas oo iskugu jira dhac kufsi bob iyo waliba in ay tacadiyooyin u geystaan dad rayado oo markaasi aan waxba galabsanin ciidamada militariga ee la keenay magaalada Goday ee caasimadda labaad ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa afartii maalin ee ugu dambeeyay xabsiga u taxaabay dad shacab ah oo aad u tiro badan halka qaar kalena la sheegayba in ciidamada militarigu ay afduubteen dhinaca kale waxaa iyadana isa soo taraya walaa xoogan oo ay qabaan dadka ku dhaqan galbeedka gobolka City oo maalmihii ugu dambeysay dagaalo xoogan ay ka socdeen kuwaasi oo ciidamada canfartu ay ku soo qaadeen dadka shacabka ee ku sugan degmooyinka dhaca dhinaca galbeedka gobolka City ee xadka la deegaanka canfarta dadka shacabka ee halkaasi ku dhaqanayaana la sheegay in ay weeraro ay soo qaadeen ciidamada deegaanka canfarta halka ciidamada militariguna ay garab siiyeen ciidamadii canfarta ka socday ee markaasi doonayay in dalka Soomaaliyeed ee dhaca dhinaca galbeedka gobolka City ay gacanta ku dhigaan si kastaba isbedelkii lagu burburiyay ciidamada New Police ee ka howlgali jiray gudaha dowladda deegaanka Soomaalida waxa uu shacabka dowladda deegaanka Soomaalida uu u horseeday tacadiyooyin iyo waliba dhibaatooyin xoogan oo ay geysanayaan ciidamadii militariga ee lagu bedelay ciidamadii New Police ee horay uga howlgali jiray gudaha dowladda deegaanka Soomaalida waxaana arintaasi su'aalo kooban aan ka weydiiyay saaxiibka Wacane oo markaasi soo indheeyay xaaladihii ugu dambeeyay iyo waliba tacadiyooyinka dadka shacabka dowladda deegaanka Soomaalidu ay ka cabanayaan kuwaas oo ay geysanayaan ciidamada militariga waxaanu soo dhawow tan iyo isbedelkii ka dhacay gudaha dowladda deegaanka Soomaalida ee lagu bedelay ciidamadii New Police ee dadka shacabku ay isfahansanayeen ee dowladda deegaanka Soomaalida ka howlgali jiray ee lagu bedelay ciidamada militariga maxaa ka dhacay gudaha dowladda deegaanka Soomaalida aad iyo aad baad u mahadsan tahay saddexdii bari ugu dambeysay ciidamada militariga dalka Itoobiya ee yimid magaalada Goday waxay halkaasi ka geysteen tacadiyooyin kala duwan iskugu jira kufsi dhac iyo waliba pop ay u geysanayaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Goday ee caasimadda labaad ee dowladda deegaanka Soomaalida Santago dhowr bari oo ciidamada militariga ay ku sugan yihiin magaalada Goday waxa halkaasi laga diiwaangeliyay dhacdooyin fool xun oo aad markaasi looga yaqsado oo ciidamada militariga ee carcarsan ee ka yimid waqooyiga dalka Itoobiya kuwaasi oo horaantii ciidamadan loogu talagalay inay la dagaalamaan ciidamadii deegaanka Tigreega ka dagaalamaya ururka TPLF ayaa haatan waxay ayagoo carcarsan oo markaasi artoodii qabo ay haatan dhibaatooyin kala duwan ka geysanayeen magaalada Goday tan iyo maalintii ciida dhibaatooyin kala duwan ay shacabka markaasi la kulmayaan oo kaga imaanaya ciidamada militariga habeenkii ilaa iyo subaxii waxa la arkayaa ciidamo markaasi rondo u socdo oo dhibaato u geysanaya dadka shacabka dad fara badan ayay ka aftoobteen gudaha magaalada Goday shacabka laftirkoodu waxa iyagu laftirkooda markaasi ay ka hor yimaadeen hanaanka ciidamada militariga ay la yimaadeen magaalada Goday oo ah markaasi hanaan aan hore looga baranin ciidamadii liyuuga ee halkaasi ku sugnaa isbedelkan ku yimid hay'adaha amniga ee dowladda deegaanka Soomaalida Santago wuxuu horseeday in shacabka magaalada Goday maanta ay dhibano u noqdaan ciidamadii militariga ee dhawaan bedelay ciidamadii liyuuga ee dhinaca kale waxay leeyahay xilligan jaani cid meel ay dhigan lahaynin ciidamadii liyuuga ee ka howlgalaya magaalada Goday intooda badan waxa la sheegay inay gabi ahaanba qorigii iyo waliba dariiska iska tiiriyeen isla markaana ay duurka galeen halka qaar kamidana la sheegay in ciidamada booliska ay haatan si toos ugu beeri doonaan haddaba Santago su'aasha halkan ka soo baxayso waxay tahay waxa uu sheegay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo hoggaanka nabadgelyada dhammaantood waxay isku raaceen in ciidamadani noqon doonaan kuwa kamida militariga dalka Itoobiya 60% inta kale tan waxay noqon doonaan ciidanka booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida waxa uu sheegay goorsii horeysay hoggaanka nabadgelyada ee dowladda deegaanka Soomaalida in ciidamadan magacoodiba awalba ahaa police ama New Police ayna qaban jireen howlo gaara laakiin howliga gaarka la joojiyay haatan ay noqon doonaan booliska caadiga haddaba maxay tahay sababta militariga dalka Itoobiya ee dhawaan la keenay
ama bedelay ciidamadii liyuuga saldhigyadoodii in ay shacabkii dhibaateeyaan ayadoo weliba ciidamadii liyuuga ama hay'adaha amniga ee loogu talagalay hawshan inay magaalada operation ka sameeyaan ama ay waxun ka qabtaan ay joogaan. marka gebi ahaanba waxaad moodaa Santiago in ballanqaadkii iyo wixii dowladdu ay sheegaysay inuu wax weyn iska bedelay sidii militariga dalka Ethiopia awalba caadadooda ahayd ee lagu yaqaanayna ay haatan la soo galeen magaalooyinka waaweyn ee sida hordhaca loo keenay cutubiyada ka tirsan ciidanka militariga ee dalka Ethiopia. wahagaag waxaanu sidaan ognahay ciidamada militariga dalka Ethiopia horay waxay ugu lahaayeen saldhigyo waaweyn tan iyo intii la aasaasay ciidamada New Police-ka dhinaca waqooyi ee magaalada Goday sidaan ogsoonahay wadadan dheer ee markaasi u aanbabaxda dhinaca magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida dhinaca magaalada ka bixeeda waad aragtay saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin marka ciidamada militariga maxay tahay sababta iyagu markaasi ay u beegsan karaan dad shacab maadaama ciidamada New Police-ka iyo waliba booliskii kaleba ay joogeen oo ciidamada New Police leeyahay ciidamada New Police-ka waxa laga dhigay boolis oo markaasi amniga magaalada dhexdeeda iyaga ilaalinaya maxay tahay sababta ciidamada New Police marka ciidamada militariga dhahnay ay u aftuuban karaan dad rayada Santiago horta ciidamada militariga yani mabdii iyo mowqifkii loo keenay inay imaadaan dowladda deegaanka Soomaalida ma ahayn inay amni sugaan ciidamadan Abiy Ahmed wuxuu u waayay mushaar uu siiyo waxaana loo soo diray inay shacabka dowladda deegaanka Soomaalida ay dhacaan oo ku noolaadaan baata iyo lacagaha ay ka qaadanayaan dhinaca kale ciidamadan ma aha oo kaliya inta la keenay dowladda deegaanka Soomaalida dhammaanba xuduud ayaa la geeyay 12,000 oo askari oo ayagana la sheegay in ayagana dhac iyo waliba kufsi iyo bob inay ka sameeyaan xuduudda dheer loogu talagalay marka qorshaan waa qorshe dheer oo markaasi balaaran oo Abiy Ahmed uu soo agaasibay Mustafa Cagjar ognahay inuu kursigiisa ilaashanayana uu saxeexay waxaan ognahay dhinaca kale Santiago nidaamkan lagu burburinayo ciidamada liyuuga ee dowladdeegaanada dalka Ethiopia waxaa la sheegay in laga saxeexay dhammaanba dowladdeegaanada kale ee dalka Ethiopia laakiin ma jirto hal dowladdeegaan oo maanta si rasmi ah ciidamadiisa u kala diray canfar waxa lagu qasbay in ciidamada kala diraan ilaa xilligan ma aysan kala dirin oo waa maanta canfar meesha ay dadka ku dhibaateynayso waa ciidamadii ee liyuuga ee markaas ilaa xilligan aan la kala dirin ahmaara way diiday in iyadana la kala diro ciidamadeeda Oromia si cad ayaa loo sheegay in ciidamadooda haysan doonaan sidoo kale tana hubkii dhawaan laga furay ama markaas laga dhigay ciidamada liyuuga ayay Oromo daldalanaysaa oo maanta la sheegay in kula dagaalami doonto ururka oola laakiin ujeedku waa uu ka balaaran yahay qorshaha loo malaynayo shacabka dowladda deegaanka Soomaalida iyo militariga maxaa isku keenay ama maxaa isku geeyay ayay su'aashaadi shacabka dowladda deegaanka Soomaalida waxay ka dhiidiyeen hubka dhigista ciidamadooda gaarka lagu sameeyay waxay ka dhiidiyeen tacdiyada militarigu ay durba ku dhaqaaqeen oo ah bilowgii iyo waliba talaabadii ugu horeysay ee ciidamada militariga ay ka bilaabaan magaalada Goday marka deegaanada kalena si toos ah ayaa loo geyn doonaa tacdiyada maanta Goday ka socotana way kas bilaaban doontaa si rasmi ah si kastaba ha noqotee magaalada Goday oo ah magaalo aad u saxmad badan isla markaana ay ku nool yihiin bulsho aad u tiro badan ayaa marti gelinaysa maalmihii ugu dambeysay tacadiyooyin ciidamada militariga ee dalka Ethiopia ay u geysanayeen dadka rayidka dad ku sugan deegaanka oo su'aalahan ka weydiinaya waxa ay noo sheegeen in ciidamada militarigu ay soo galiyaan gudaha magaalada isla markaana qoomiyadda Ahmaaradu ay ku leedahay hoteelo waaweyn oo markaasi lagu cabo khamrida iyo waliba maandooriyaha isla markaana ciidamada militariga oo ku hubaysan hubkoodu ay markaasi gudaha u soo galayaan magaalada iyagoo markaasi isticmaalaya maandooriyaha kadibna dadka rayidka ee wadada maraya ay dhibaato xoogan u geysanayaan waana arin ay sheegeen in ay horay 2007 wixii ka horeeyay ay u geysan jireen ciidamada militariga ee ku sugan saldhigga ku yaala duleedka magaalada Goday ee caasimadda labaad ee dowladda deegaanka Soomaalida dhinaca kale xiisad iyo waliba dagaalo xoogan ayaa waxay ka socdaan galbeedka gobolka City ee dowladda deegaanka Soomaalida halkaasi oo maalmihii ugu dambeysayna ciidamada New Police ee dowladda deegaanka Soomaalidu ay dagaalo xoogan kula jireen kooxo hubaysan iyo waliba ciidamada maamulka canfarta oo ayagu duulaan qaawan ku soo qaaday deegaano ay lahaayeen dad Soomaaliyeed isla markaana tacadiyooyin halkaasi ka waday sanadihii ugu dambeysayba waxaana su'aal labaad ka weydiiyay saaxiibkay wacane oo markaasi isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee ka dhacay galbeedka gobolka City waxaanu mar labaad soo dhawow galbeedka gobolka City ciidamada New Police ee ku sugnaa dagaalo xoogan ayay kula jireen maalmihii ugu dambeysay ciidamadii deegaanka canfarta ee New Police iyo waliba jabhadooda oo markaasi duulaan qaawan sanadihii ugu dambeeyay ku soo qaadayay degmooyinka ku yaala galbeedka gobolka City ee markaasi dhaca xuduudda canfarta ay la wadaago dowladda deegaanka Soomaalida bal maxaa ugu dambeeyay halkaasi
aad baad umahadsan tahay. tan iyo intii ciidamada liu booliska ee hubka dhigista lagu sameeyey sidoo kale tana laga soo qaaday galbeedka gobolka city oo dagaalo xoogan ay ku dhex marayeen ciidamada liuga iyo weliba ciidamada deegaanka canfarta. waxaa haatan santiago lasoo warinaya in shacabkaasi saddexdii beri ugu dambeysayba dhibaatooyin kala duwan oo joogto ah ciidamada liuga ee deegaanka canfarta ay halkaasi ka wadeen. dhinaca kale waxaa la sheegaya in militariga laftirkooda oo halkaasi la geeyey ayadana ay haatan bilaabeen taadiyooyin iyo dhibaato loo geysanayo dadka shacabka ee Soomaaliyeed. militarigu maba aaminsanaba in dadka Soomaalida ah ay deegaanka iyo dhulka iyagu leeyihiin. waxay aaminsan yihiin in markaasi wixii aan Soomaali ahayn ay yihiin Etoobiyaanka saxda ah ee markaasi dhulka iskale. marka labada qof baanta canfar iyo Soomaaliya ku dagaalamaysa galbeedka gobolka city deegaanada dhulka Soomaaliyeed, militarigu waxay aaminsan yihiin garabna siinayaan dhanka deegaanka canfarta. sababtoo ah canfartu waxay qayb ka tahay militariga dalka Itoobiya. jananada qaar ayaa iyagu markaasi ka soo baxa ama janarada militariga qaybo badan oo kamid ah waxay ka imaadaan dhanka canfarta yacni qowmiyadaha kale ee dalka Itoobiya. laakiin Soomaalidu waa laga dhaariyay inay janan yeeshaan yacni jagasar ay ka qabtaan militariga. taasi ayaana sababtay in Soomaalida looba aqoonsan waayo ama la ogaan waayo inay ka mid yihiin dhul weynaha dalka Itoobiya iyo waliba in qowmiyadaha dalka Itoobiya ayba qayb ka yihiin. marka militarigu inay maanta tacdiye ka geystaan magaalada Goday, inay dhibaatooyin kala duwan ka wadaan gudaha dowladdeegaanka Soomaalida, inay maanta canfar iyo oramo la saftaan waa mid khasaba oo markaasi ah hal walba shilalkii ay isdhigto ayaa lagu qalaa. inagu militarigeenu wuxuu ahaa ciidanka liu booliska. haddii maanta militarigeeni la kala diray oo maanta militari kalena ayna ku lahayn ciidanka militariga dalka Itoobiya, waxay arrintaasi ku tusaysaa in shacabkeenu mar walba ay ku dulman yihiin dhinac kasta, hadday noqoto federaalka, hadday noqoto militariga, hadday noqoto siyaasadaha kala duwan ee dalka Itoobiya, hanaanka saami qaybsiga ee guud ahaan dalka Itoobiya. dabcan madaxweynaheena ayaa maanta ah Mustafa Maxamed Cumar, aan ognahay tabartiisii taagtiisa meesha ay dhigtay, kursigu inuu kala weynaaday hankay dhanaa ee dowladda deegaanka Soomaalida u lahaa. guud ahaanba marka xaaladda dowladda deegaanka Soomaalida maanta ay ku sugan tahay waxaa weeye Santiago mid humantilaana galbeedka gobolka city haada ayaa cunayso meydadkii dadka shacabka ay laayeen ciidamada canfarta. ilaa iyo xilligana ma jirto cid u danqanayso in Ilaahay u bixiyo gurmad kaleeto oo ka imaanaya dhinac kaleeto ama dadka dhiigga iyo magaranaysa dhacaanka Soomaalinimo ay ku jirto in Ilaahay u bixiyo moogi Mustafa Maxamed Cumar waxba kama qaaday. isku soo duuduubo madaxda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa iyagu bogaadinaya isbedelka cusub ee ku yimid ciidamadii new booliska ee markaasi lagu bedelay ciidamada militariga ee dalka Itoobiya, halka dadka shacabka ee ku sugan gudaha dowladda deegaanka Soomaalidana ay walaac iyo waliba tacadiyooyin ka muujinayaan ciidamada militariga oo markaasi maalmo gudahood la keenay gudaha dowladda deegaanka Soomaalida. goobaha ciidamada militariga lagu daadiyay ayaa waxaa ka mid ah galbeedka gobolka city oo dagaalo xoogan ay ka socdeen, kuwaas oo dadka shacabka ay sheegayaan in markaasi ciidamada militarigu ay la safteen dhinaca deegaanka canfarta, isla markaana duulaanka lagu soo qaaday dadka shacabka ay qayb ka yihiin. dhanka kale magaalada Goday iyo waliba magaalooyin waaweyn oo kaleeto oo markaasi ka mid tahay magaalada Mooyaale oo markaasi dhacda iyadana xuduudda deegaanka Oromada iyo waliba deegaanka ama dalka Kenya dhahne ayaa iyadana dadka shacabka waxa ay sheegayaan tacadiyooyin xoogan inay ku dhaqaaqeen ciidamada militariga ee dhawaan halkaasi la keenay. waana sababta markaasi shacabka dowladda deegaanka Soomaalidu ay markaasi uga hor imaadeen isbedelka lagu sameeyay ee ciidamada militariga loogu wareejiyay ciidamada new booliska. ciidamadii new booliska ee hubka dhigista lagu sameeyay ayaa iyadana waxaa ka soo baxaya walaacyo kala duwan oo markaasi lala xiriirinayo in ciidamadii new booliska ee hubka laga dhigay markaasi aysan dowladda deegaanka iyo waliba dowladda federaalkuba aan la geynin oo goobihii horey loogu talagalay ee ahaa in ciidamada booliska ay ku biirahayaan, iyadoo cutubyo ka tirsan ciidamada new booliska la sheegayba loo sheegayna markaasi in ay iska kala tagaan oo guryahooda aadaan. waana arrin labaad oo markaasi halis ku keeni karta gudaha dowladda deegaanka Soomaalida. daawadayaal wixii ka soo kordhay wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa.